horta kulka hore maan jeclayn anigu inaan wax ma garanaysaa dee shaqadayda mooyee inaan wax kale ka hadlo su-aasha ay weydiiseen ee odhanaysa wasaaraddii way baaba'day kulkaa maxaa iska bedelay amaba gebi ahaanba wasiirka jooga shaqadeeda ma garanayo ayuun baan anu idinka jawaabi lahaa taas ma qabna anagu fikirkaa wasaaradda waxaa soo maray intaanu joognay wasiirro fara badan oo aan ahayn veterinarian oo ma garanaysaa wasiirro aqooma kala wata sida uu wasiirkan joogaaba imaka uu wato qasabna ma aha in wasiirku ahaado ma garanaysaa dhakhtar ama veterinarian inuu ahaado laakiin isagu waxa weeye waa dee siyaasadda gudbu maamulayaa ee wasaaradda dee waxay leedahay wasaaraddu oo wax waliba waxbay qaabilsan tahay waxaan qabaa maanta inay meel fiican ay u socoto wasiirkana uu yahay wasiir ma garanaysaa dee aanu albaabkiisu xidhnayn oo wasiir odayeeya oo waliba qaab odaynimo ama garanaysaa wixii loola tago u eega ama ma garanaysaa kaga jawaaba way jireen qaar noo soo maray oo shaqaale u kala abtiri way jireen laakiin waxaan oran karno dib buu ku hayaa ma garanaysaa cid ama wax buu qalloociyay ama ma garanaysaa dee wax uu ma garanaysaa kaga duwanaansho wasiiradii hore veterinarianka inuu kaga duwan yahay anigu ma hayna dee taas waa taa iyadu ta kale leedahay maxay ma odayaal ka tegay ayaa jira oo dadna heege iyo waxbaa ma garanaysaa dee wuxuu uga jeedo qofka yidhi isaga la weydiin doona oo heegada iyo waxaas wuxuu uga jeedo laakiin isbedelku mar walba dawlad sunaha dawladnimo haddii odayaal hore ay waqti badan soo joogeen way ku amaanan yihiin inta ay soo gaarsiiyeen wasaaradda iyo ma garanaysaa heerarkii kala duwanaa ay soo gaarsiiyeen imakana dhalinyar aqoon leh oo kasii aqoon badan oo noodhan karno wax badan bay kusoo kordhiyeen ma garanaysaa meelihii loo dhiibay ayuuma bedelay taasina waa taa marka mala aniga waxay ii soo doonateen ninka saaxiibka ee hadlay waa xafiiskiisii xafiiskan xafiiska wasaaradda ka jooga xafiiskan aad maanta joogtaa maxay iska bedelay xafiiska markii uu joogay iyo maanta hadday su-aashu tahay anigu waan la shaqayn jiray oo isaga madax noo ahaa naga sarreeyay waqtiguu isagu joogay xafiiskan faydhowrka guud maradu jeex buu ku koobnaa oon waqtigaa weliba aniga shaqaale kale aanu dhaqaajinay imakana waa la wada ogyahay halka uu maraya inuu dalkao dhan gaadhay xafiiska faydhowrka guud meelaha aanu gaadhinna si dhaqsaa uu gaari doono dardar badan iyo ma garanaysaa isbedel badanna ay maanta cidnaba aanay ka qarsoonayn in la geliyo xafiiskan manuu iska dhaqaaqeen dee haddii aan lala garab taagnayn tamare dee ciddaa dhaqaajinaysa wuxun baa haydun cidda mas-uuliyiinta ka ah wasaaradda ayaa dee dhaqaajinaysay kolka isbedelka dee waxa laga arki karaa intaa marka wixii siyaasad ee kale dee anagu wixii farsamo ahee magaranaysaa technical ayaa noo yaala wixii technical ah ee wasaaradda inta aanu ma garanaysaa aanu imika anagu ama madaxda wasaaradda aanu kamid ahayn ma garanaysaa xafiisyada joogta dee anu maana arkaynin wax qabad iyo wanaag soo kordhay mooyaane oo wax walba halkiis ka dhaqaaqay mooyaane in dib u dhac yimi meel laba kama muuqato maanta halkan waxaad nooga timaaday kulli inaad su-aala ma garanaysaa su-aalaha aad naga soo doonateen haddaan idiin jawaabo maanta maalintii xoolaha la dhaliili lamaa iyo wasaaradda la dhaliili lamaa wasaaraddu waa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxay ka shaqaysaa waa horumarinta kalluumaysiga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo ah in xoolaha dhaqamaadka iyo kuwa la dhoofinayo iyo hilib iyo cad iyo caana iyo subag intaba ay horumariso maantana waxay taagan tahay run ahaan kaloo la sheego heerkii ugu wanaagsanaa maanta oo wasiirka yahay wasiir Saciid Sulub Maxamed alla hadaayay waxaan ku wariy oo horumariyay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaad arkayseen wasaaradda xanaanada xoolaha inay ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer degmo ay u dhaadhacday oo shaqadii loo sii daayay maanta saadarteed waxaan oran karnaa wasiir Saciid Sulub Maxamed waa wasiirku ugu haboonaa ee soo maray muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan intii aan garanayno waa wasiirku ugu haboonaa oo wasiirka daadajiyay ee shaqada waxaan ku ilaa heer degmo waxaad arkayseen dhawaan ahaan beerar lagu qabtay oo anagu qacmahayaga ku qabanay gobolka Gibiley saadaradeed beerkaas
oo laga soo geliyay wadan shisheeye ama wadanka jaarka kaasoo waxaan ku yiri la soo geliyay Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee wadanka ku yaala beerkaasoo aynan garanayn kawaanka lagu soo qalay meesha laga keenay iyo waxa uu yahay magaranaysa lana cuni karin oo aan ku gubnay dadkiina waxaan ku xidhnay sadaradeed waxa ogtahay oo kale maanta in caanaha xagga horumarka ka gaadhnay oo shaybaadhadii caanaha aynu ay bilow inoo yihiin oo aynu ilaa heer degmo ilaa heer gobol ay bilow inoo yihiin sadaradeed waxa la oran karaa maadaama waxa soo dhan ilaa heer degmo laga bilaabayo waxa weeyaan xilligii ugu haboonaa ee wasaaraddu gaadhay maanta dhaliil hadba uma baahna wasaaradda xanaanada xoolaha iyo in la siyaasadeeyo waxay u baahan tahay in la amaano maanta oo dhinac laga wada istaago wasaaraddu muddada ay soo jirtay way isbedelaysaa ama wasiirka la bedelayaa ama waxa la bedelayaa agaasimaha ama agaasimo waxdada ama isduwaasha maanta haddii la bedelay odayaal ka mid oo ilaa dawladda Soomaaliya soo joogay waxa bedelay dhalinyar maanta halkoodii qabtay shaqadii hore kiciyay shaqadii hore dardar galiyay maanta waxay maraysaa wasaaradda xanaanada xoolaha heerkii ugu haboonaa haddii la eego maanta waxaan oran karnaa wasiir Saciid Sulub Maxamed waa wasiirka ugu haboonaa ee gaarsiiyay heerka waxaan rajaynaynaa inuu sii wado maanta waxaan ku talaal iyo dawo hadii noqoto ilaa heer degmo ilaa heer gobol uu yaala oo waxaan ku laga helaya degmo kasta sadaradeed horta wasiirku waxa weeyaan political figure maaha qasab maaha inuu dhakhtar noqdo laakiin waa political figure oo ku jahaynaya wasaaradda u hogaaminaya horumarkii iyo heerkii gaadhi lahayd taasina macna weyn ku fadhido in la fahmo baahan ee uma baahna wasaaradda in dhaliila yaro aan meel gaarsiisnayn in loo soo jeediyo